Soomaaliya ayaa heshay yabo dhaqaale oo 50% ah oo uu bixiyay Bangiga Horumarinta Afrika kaas oo loogu talagalay in wax looga qabto mushkiladaha ka dhashay isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ay wajahayso. Mashruucaasi lacagta ku baxaysa oo dhani ay tahay 18 milyan oo dollar waxaana qalinka ku duugay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo ka qayb galay shirarka sanadlaha ah ee uu qabto Bangiga Afrika. wasiir Biixi ayaa Maxamed Baashe uga waramay muhiimadda shirkaasi iyo kan xiga ee heer madaxweyne ee Nairobi ka dhici doona. Shirka aan ka qayb galay ama shirar badan oo isna ayaa la beeyahay waxa weeye waa shirarka sanadlaha ah ee Bangiga Horumarinta Afrika oo qabto sanad walba marka waxa laga hadlaa caqabadaha marka Afrika haysta dhanka horumarinta iyo fursadaha iskaashiga dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta intaba marka shirkani wuxuu ahaa shirkii sanadlaha ee African Development Bank sanad walba qaban jiray sanadkana waxa lagu qabanayaa magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa martigelinaya marka shirku waa shir laba heer leh heer wasiir iyo heer madaxweynayaal miya labadaba waa leeyahay marka heerka wasiirada si gaar ah maxaa u falanqayseen walaal shirkani uu socon doona maalmaha soo socdana kulamo kala duwan oo mawaadiic kala duwan lagu eegayaba runtii lagaga hadlaya ajendayaasha ugu waaweyn ee runtii sanadkan diiradda la saarayana waxa weeye sidii loola tacaali lahaa ama wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada iyo maxaan ku radaa afooyinka dabiiciga ee dhibaatada weyn ku haya Afrika guud ahaan iyo sidii dhaqaalaha Afrika loo kobcin lahaa qadeeda kale muhiimka iyadana waxa weeye sida hay'adaha maaliyadda adduun iyagana loo dib qaabayn loogu sameyn lahaa si ay si fiican ugu diyaar garoobaan ama isugu qaabeeyaan inay xalliyaan mushkiladaha cusub ee dunida ku soo kordhay wasiir dhinaca isbeddelka cimiladu Soomaaliya mushkilado badan ayuu ku hayaa ama ha noqoto abaaro soo noqnoqday ama ha noqoto fatahaado dad badan oo Soomaali ay ku barakaceen dhibaato gaarsiiyay waxaad qalinka ku duugtay mashruuc arintaasi wax lagaga qabanayo bal mashruucaas muxuu yahay muxuu wax ka qabanayaa yaasina ka caawinaya maxaas adduun lacageed ku baxaya walaal anagu doorkan runtii waxa sharaf noo ahayd ama farxad noo ahayd inaanu saxeexnay mashruuc loogu talagalay in wax lagaga qabto isbeddelka cimilada gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka beeraleyda ah in wax lagu taro sidoo kalena awoodda dawladda iyo institutionskeeda iyo hay'adaheeda kor loogu kobciyo mashruucaas oo ku kacaya 18 milyan oo Bangiga Horumarinta Afrika uu maalgelinayo ayaanu maanta Afrika maxaan ku bangiga Afrikaanka kala saxeexnay waxaan rajaynaynaa in dhowrka sano ee soo socda uu hirgalo waxna ka taro runtii la tacaalida afooyinka dabiiciga ee ugu horeyso isbeddelka cimilada arrin weyn bay ahayd oo muhiim ahayd in maanta Soomaaliya ay qayb ka ahayd dhowr dalo mashruuca qayb ka ah oo saxeexay oo Soomaaliya waliba haddaan halka tiimiyo qaybta ugu weyn ee ka heshay mashruucu guud ahaan 35 milyan buu ahaa Soomaaliya 18 milyan bay ka heshay 5 dal baana ka faa'iideystay heerka madaxweynayaasha ayuu u gudbayaa shirku isaga maxaa lagaga hadli doonaa wasiir maadaama aad ka mid tahay madaxda shirka qayb galaysa waxaa lagaga hadli doonaa ajendayaasha wasiiradu oo ah tii governorska waxa loo yaqaano ama maamulayaasha bangiga oo wasiirada maaliyaddu ay yihiin ajendayaasha ay soo diyaariyeen aan ka wada hadalay ayay runtii iyaguna xoojin doonaan riixi doonaan marka mawduucaas aan hadda ku sharxay la xidhiidha iskaashiga guud sidii la isaga kaashan lahaa dhibaatooyinka guud aan dalna ku koobnayn iyo sidii xalal waara oo loogu heli lahaa dhibaatooyinka aafada ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa iyaguna uu daaranaan doonaa kaas bay runtii si la faguri doonaan awoodooda iyo hogaamintoodana ku dari doonaan ugu dambeyn wasiir Soomaaliya inta badan shirarka caalamiga iyo shirarka ka dhaca gobolkaba waxa ugu badan laga hadlo waa yabo dhaqaale oo Soomaaliya la siinayo ama yabo dhaqaale oo Soomaaliya ay dalbanayso si ay mushkilaad gudaha ka jira ay wax uga qabato in yabohaas mooyee fursado maalgashi oo kale oo ama ha noqoto shirkado waaweyn ama dawlado ha noqdee Soomaaliya ay bandhigtay ma jiraan marka la fiiriyo sanadii ugu dambeeyay ee dalka gudaha kobaca dhaqaaluhu kordhayay fursadahaasi ma heshay dawladdu ma soo jiiday maalgashadayaal ee gudaha Soomaaliya maalgeliya walaal horta waxaan rabaa inaan ku tilmaamo Soomaaliya kali kuma aha inay had iyo jeer aale soo bandhigto baahiyaheeda gudaha sidoo kalena dunida kaalmo ka raadsato si loo xalliyo mushkiladaha gudaha ka haysta laakiin waa wax dawladda runtii naga tun weyn oo inaga itaal waaweyn ay nala qabaan oo dawladaha Afrika iyo wadamada soo koraya oo dhan ay ka siman yihiin xaqiiqatan kaalmada aan helno waaba ka yar tahay dalalkaas su'aasha ah dhanka maalgashiga waa saxan tahay maalgashigu runtii waa laf dhabar buu u yahay kobaca dhaqaalaha
dowladduna waxay aad iyo aad ugu howlantahay og tahay wasaaradda qorshaynta iyo guud ahaanba dowladdu inay waayadii u dambeysay ay xoog saarayeen ee u suxulduubnaayeen in la helo maalgashadayaal caalamiya shirar badan dalka lagu qabtay gudihiisa oo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi wixii shuruuc ahaa iyo siyaasad ahaa maalgashigu wuxuu u baahan yahay in jawi la abuuro jawigaasna runtii dowladdu aad looga shaqaynaysaa amniga aad looga shaqaynaya waxaasoo dhan waxay runtii horseedi doonaan in maalgashigeenu runtii kobco dhaqaaluhuna kobco